أحمد أفتي سفر كاغ برانك ميا مصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بعدي سلام ميلو الدونا كتشوكتان جمعة وناكسن بعد اللي هاي جمعة مبارك بعد اللي أصحاب تقاليقة يقحدن وحن إذا اللي هاي قلبي قد كنت هالين دمان تيمبا أصحاب تقاليقة نهرت صود وهذا إذا اللي هاي ما أنت وحن على السؤال ير والسفر كي اللي يسوي دي أصحاب آدو تربضن أو يقحدن أي يسوي دي نانك جواب أيان تعلست مثلا أنا هلكن أصفرست سؤالها اسمحي بس أورن دونتان بالسؤالها سوحويان لمبركو وحلا يسوي دي أحمد أفتي سفر كاغا يا كوجو هليا سفر كيجي وح يجو هلين دونا ما لا شيء مثلا لقدريه سفر كيجي إن شاء الله وكلجي وحنكون بيجنا إن شاء الله هدول هيد مايو خميس صعد أيان هرجس إيمان دونا هدول هيد مايو ضد بدن وحي موداين خميستن حتى إن دافتي إن عن إيماني لكن ما هن أصحاب تغالية وحن إيمان دونا خميس صعد إن شاء الله هدول هيد مايو مثلنا بتقبل نوجرت مركز أصحاب تغالية سان هربا إذن كل شيء maalinkaas ku soo beeganahay su'aalo fara badan waxaad iga soo weydiinaysaa oo kale Axmed Afti safarkaaga baraanka miya masoor wallahi iga qasida asxaabta qaaliga wallahi asxaabay hadaan run idin sheego safarkan waa mid xaqiiqo waxaan ku kala fogaan doonaa asxaab aad iyo aad aan wada midownay misana team aan ku soo wada noqonay misana waqti aad iyo aad u qaaliya aan ku soo wada qaadanay Malaysia ayaan ku soo xasuusan doonaa marka aad meel garansa ka tagiso qalbiga ku xamnay maalinkaas aan baxay waxaan ka baqanaya ilin fara badan inay igu qabato waa dad aad u qiimo badan baan ka tagaya aan waqti aad u qurux badan aan soo wada qaadana wax soo wada cunay aan ku walaaloona meeshan waxaan joogaa 3 sano 3 sanaba dad aad iyo aad u qiimo badan aan ku wada qaadanay oo wax soo wada cunay oo waqtiga iyo maalmahaba aan soo wada magaransa qaadanay dadkaasina waxa leeyahay meel walba adduunka ka joogan noolaada qalbi wanaagsan ku noolaada nolol fiican ku noolaadaan leeyahay waayo noloshu waxay tahay mar walbaaba isbedel qof walbaaba adduunka nool barnaamij iyo nolol gaar u leeyahay waayo meeshan asxaabta aad ku qiimaha badan leh aan ku kulanay qof walbaaba dantiisa iyo barnaamijkiisa iyo noloshiisa keentay waayo meeshan waa maaha meel yani la deganaado ama sida adduunyaha kale ay dadka intay aadaan ay deganaadaan misana ay ku soo laalaabtaan waayo meeshan waa program qof walba oo imaada programka oo imaadana maalinka uu ka dhamaado uu tagay qofkii kalena uu joogaa marka programkii iyo noloshiina hore u wataadilay qof walba oo sanad cusub bilaabmay inuu noloshiisa hore u wado waxyaabo badan oo aad qurux badan ku soo kordhiyo ayaan u rajeynayaa idinkana waan idin rajeynayaa waayo sanad cusub markuu bilaabmo wax qurux badan in aad noloshaada ku soo kordhiso wax aad u fiican si yaani aad u hana qaadid كولستان اللي ميلو الدنيا جوكتان سفر كنا بين ماهن حقيق ويان إن شاء الله وحنا إيمان دونا خميس تصوص عطا وحول بابين دينا تكوهاك دونتان إن كستو على الحمو هي قلبي يقول إلى حنونا ضدك يقول قالي إن كتيجا ماشان أنا كنت باستوديان أو حياة أبدا من كسو ببناي فرحات فربضان أكو قادني عن ضد فربضان أو مقران سا قيمة يقول أنكو ذا كلاني مليسي واحد سنان دونا وحنا اللي هاي دمانتين نولاد marka asxaabta qaaliga insha Allah waqtigaas inoo balan waqtiga iyo taariikhda iyo time-ka ay tahayba insha Allah waxaan ku soo sheegi doonaa muuqaalada dambe safarkiiba hadana ku gudo jira alaabihiisi waxyaabihiisi ma garateen waa iska garanaysan qofku markuu safraayo hawlo fara badan ma garanaysan saas kugu dhaxyaalaya marka maanta waxaan halkan idinka sheegayaa inay maalinkaas inoo balan haato waqtiga iyo magaransa time kana insha Allah in aan dib idinku soo sheegi doono marka ay soo dhawaato duulahayd maayo waxaan rajeynayaa nabad qab iyo wanaag qalbiga aan isku sii deynaa dilay misana aan isku soo ducay insha Allah marka hada safarkeenu markaas wax bilaabma doono waqtiga aad ii sheegay Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nabad qab inuu gaarsiiyo saaxiibkii Liibana dad badan waxay iga soo weydiinay Liiban ma ku soo raacaya Liiban miya hargeysa wada imaan doontaan saaxiibkii qaali waxa rajeynayaa isagana inuu imaan doono isna aan si qurux badan ugu soo dhaweyn doono hargeysa insha Allah meel walba Soomaali degatana waxa rajeynayaa inaan imaado misana aan waqti la soo qaadan doono asxaabteeda qaaliga ee ugu xiran idinka waxa la horta 160 kun baad maanta in gaarsiisana 200 kun waa ina si degdeg insha Allah inoo gaar marka asxaabteeda qaaliga hadal badan ma u soo fariisan waxa idin sheegay safarka inuu xaqiiqi yahay misana uu baraanka hayn aan imaan doono wax badan oo aad iyo aad u qarsoon oo aad u qurux badan
waxaan ku wada qaadan doonaa wadankii marka gobolada dhan insha Allah isku soo mari doonaa maanta waxaan fadhiyaa meel aan u soo xiistoono wallahi qalbiga qulubta markaan ka eego waxaan dareemayaa inaan u soo xiistoono meeshaasna waa goob asxaab aad u tiro badan aan ku wada qaadan jirnay farxad asxaabtu aad iyo aad u tiro badan aan muuqaal ku soo wada gudbin jirnay meeshaasina wax weeyaan meeshan aan fadhiyo waxa silfarkan yaalana waxa weeyaan saaxiibka qaaliban aadan cali silfarkiisa waxaan helay dheelitira dhismaha noloshayda kaba qofii dhigmo oo i jecel waxaan helay dhowrta nolol dhibtayda u sheegan karo oh my god marka waxaad leeyahay insha Allah asxaabta qaaliga war badan meeshan uu soo fariisan waxaan jeclaystay su'aalaha yare kooban ee soo weydiisanayay ka jawaabo muuqaalada dambe xiiso leh intaan ku kulmayna waxaad kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo